natiijada daawashada muuqaalkan kadib ka dhalata waxay rajaynayaan inay noqoto haddii dabcigaagu wanaagsanaa inaad mahadiso oo aad halka ka sii waddo. haddii aad ahayd qof jecel oo dabeecaddiisu xun tahayna waxaad go'aansanaysaa inaad si dhaba dhaqankaaga u wanaajiso. diinteena islaamku waxay ku dhisan tahay akhlaaqda wanaagsan. nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi waxaa la ii soo diray akhlaaqda wanaagsan inaan dadka hagaajiyo. rabbi subxaanahu wa tacaala suuratulqalam marka uu rasuulkiisa ammaanayay waxa uu ku yidhi wa innaka la calaa khuluqin cadiim, waxa aad ku dul sugan tahay akhlaaq weyn oo la mahadiyey. nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah isagoo la dardaarmaya bulshada muslimiinta waxa uu yidhi ilaahay ka baq meel kastood joogtid, dadkana kula dhaqan wanaagsan. anas bin maalik oo ah khaadimkii rasuulka muddo 10 sannadooda waxaa laga qoray hadalkan isaga ah. waxa uu yidhi waxaan gacanyaro u ahaa nebiga muddo 10 sannadooda. 10kaas sannadood sideedaba waxaa lagu yaqaannaa qofka khaadimka ahi inuu yahay qofka ugu dhow ee qof dhaqankiisa ogaan kara ama sida ula tacaamilo. waxa uu yidhi rasuulka ilaahay weli shay aan sameeyey ima odhan maxaad sidaa u samaysay oo aan la rabin inaan sameeyo. weli shay aan samayn waaye oo la rabay inaan sameeyana ima odhan maxaad sidaa u samayn weyde. waxa uu yidhi waxa aan taabtay shay kastoo dabacsan laakiin ma aan arag wax ka dabacsan calaa cashar rasuulka. waxa uu yidhi waxa aan uriyey caraf kastoo udgoon laakiin ma aan arag wax ka udgoon carafta rasuulka sala allahu calayhi wasallam. sidaa darteed dhaqanka wanaagsan rasuulkeennu waa qudwada iyo cidda keliya aan ku dayanayno ee aan jidkiisa raacayno. isagu dhabtii waxa uu ku sifoobay akhlaaq wanaagsan waana midda layna ka rabo inaan inaguna ku sifowno. haddii aad doonaysid jannada qaybaheeda sare in aad gaartid, nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi yaa ii ballanqaadaya in dhaqan wanaagsan uu yeesho aniguna aan u damaanad qaadaa jannada qaybteeda sare inuu galo. rabbi subxaanahu wa tacaala waxa aan weydiisanaynaa inuu dhaqankeenna wanaajiyo oo aan noqonno kuwa akhlaaqdoodu wanaagsan tahay. bishaaro waxaa loogu bishaaraynayaa dhammaan bulshooyinta Soomaaliyeed ee daafaha caalamka joogta in markaska Al-Hidaaya Islamic Center uu diiwaan gelin doono arday cusub. markaskan ayaa waxa uu bixiyaa duruus ay ka mid tahay aasaaska diinta islaamka sida higaada, qur'aanka oo hab tajwiida loo barayo, caqiidada, barashada farteena Soomaaliga ee dhaqanka, iyo in weliba salaada laga saxo iyo waxyaalaha caqiidada ku tacalluqa. haddaba haddii aad u baahan tahay waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarkan aan kuu sheegayo +2529054445550. aad baa u mahadsantahay.